بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dhamaystay bisha barakeysnayd ee Ramadaan waxaan leeyahay ciid mubaarak dhamaantiin kullu aamin wa antum bikhair ilaahay hanaga aqbalo salaadii iyo sujuudii iyo soomkii iyo qiyaamkii iyo tahajjudkii iyo taraawiixdii intaba Allah naga aqbalo intii aan ku jirnay bisha Ramadaan ilaahay aan baryaynay waa duceysanaynay waanu isu duceynaynay ducadaas ilaahay ha noo aqbalo dalkeena iyo dadkeenana kuwii guuleysta Allah ka dhigo inta kadib waxaan garanaynaa intii aan ku jirnay bisha barakeysnayd ducooyin aad iyo aad u qiimo badan ayaan ku duceysan jirnay Allahumma innaka afun wa tuhibbul afwa fa'fu anni ya rabbal alamin ayaa kamid ah anagoo wajiga dhulka ku hayno oo sujuudsan aan ilaahay ka baryeynay cafisan ilaahay ka baryeynay ilaahay inta wax cafisa inuu ugu fiican yahay cafisku uu jecel yahay asaguna cafis uu yahay ilaahuna cafiyan lahayn sidaas daraadeed fursadan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ha ka faa'iideysato walaalkaaga Soomaaliyeed cafi walaashaada Soomaaliyeed cafi meel kastoo aad joogtaba cafiga rabbi hana wada cafiyo anaguna aan is cafin hadii aan leeyahay inta kadib maalinta ciida ah ee fadliga badan walaalaha Soomaaliyeed ee ilaahay wax u dhiibay ha garab istaagaan oo ha gargaaraano walaalahooda kale ee danyarta ah si ciida aan farxad ugu wada ciidno annaga dhamaanteen caruurteenu ay farxad ugu ciido aan wadaagno waxa aan haysano maalintaas farxadda leh si aan u wada faraxsanaano hadii alla yiraahdo inta kadib duruufo adag iyo waaye adag oo dalku isaga jira waana dadaal badan waa la sameeyay waana soconnaa waxaan rabaa halkan inaan mar kale ugu baaqo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada culamaa u diinka waxaan leeyahay walaa culamadeennii doorkiina qaata wacyigelinta dadka ku baraarujinta dadka xaqa iyo waxa wanaagsan ku baraarujinta dadka amniga iyo nabadda iyo wanaaga iyo dawladnimada ku baraarujinta dadka iswalaalaysiga iyo midnimada doorkaasi waxaan leeyahay culimadu aad ha u xoojiyaan oo aqli celinta waana siinta kuweena xoogaa fogaaday ee maxaan ku iraahday aqeedadooda iyo dareenkooda oo la fogaaday ee oo kula fogaaday fikir iyo aragti annaga aanan lahayn Soomaalida ah walaalayaal ummadda Soomaaliyeed ummad Soomaaliyeed aan nahay boqolkiiba boqol muslimiin dalkan waa dalkanagi waa dalkii Soomaaliya dalkan Soomaaliya la yiraahdo waxa iska leh dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah dadkoo dhan ma wada laha muslimiinta dhanna ma wada laha Soomaaliya iska leh cid kasta oo aan Soomaali ahayn waa ajnabi waxaan ula macaamilaynaa sida adduunyada ay u macaamisho sida ugu wanaagsan marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ogaadaano dalkaanaan leenahay dadkaanaan leenahay ayagaana khuseeyo tala dibad ka timideen oo ma xalinayso taladiisa annaga inoo taalaaye aan tashanno aan isaqbalno dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay xoogii ummadda caqliga ummadda adinka ah hadii shalay leedinku eedeynay dalka inaad dumiseen maanta waxa leedinku amaanaya leedinku bogaadinaya inaad dalka dhistaan iswalaaleysta iskaashada is-aamina idinku awoodiina iyo xoogiina iyo aqoontiina ku kalsoonaada walaalnimada maxabada walaalnimo isoo dhaweentana aad iyo aad loo qadariyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaalidu waxay ku maamaahdaa bariyashada waa in gaaban maalmaha dhibka badanna waa gaaban yihiin maalmihii dhibka badnaayna ilaahay idinkiis waa naga dhamaanayaan dhul barwaaqa iyo dal barwaaqa iyo duni barwaaqa ah ayaa noo soo muuqata hadii alla yiraahdo dhalinyaradu ha ka shaqeeyaan hana u guntadeen arintaas inta kadib waxaan rabaa inaan wax yar ka iraado Soomaaliya waxay leedahay adduunyada meel caam ah kaga taala meesha meel u fiican ay kaga taala dhul iyo deegaan ilaahay oo noogu nimceeyay ayay ku taala mowqica aan ku naalno Soomaaliya darisan leenahay dariskeena annagu isma dooran annaguna ma dooran inay daris noo noqdaan ayaguna ma dooran inay daris u noqono waxa naga dhaxeeyay waxay tahay macaamil wanaagsan inaan lahaan haddii walaalaha qaarkood aan dariska nahay ay hal qadiyad naga dhaxayso oo hal arin aan isku hayno waxa wanaagsan oo aanan isku hayn oo daris wanaaga
iyo saaxiibtinimada iyo wada shaqaynta ku habboon oo naga dhaxeeyo ayaa ka badan qadiyad aan isku hayno. qadiyad aan isku hayno si wanaagsan oo ixtiraam iyo qadarin ku jirto inaan u xallisanno ayaana laga rabaa. waxaana laga rabaa inaan sida caalamka ilbaxnimada leh oo tilmaamayo inaan u dhaqannaana laga rabaa. taasina waa sida aan leeyahay waa qarniga 21aad sida ugu fiican ee dirisnimada iyo wanaagga iyo walaalnimada loogu wada dhaqmo. waxaan leeyahay wax badan oo wanaaga oon wada qabsan karno horan u soo wada qabsannayaa naga dhexeeyo. walaalaha dariska ah, dowladaha dariska nala ah, waxaan rabaa inaan ugu baaqo gobolkan geeska Afrika la yiraahdo meelna inuu nabad ahaado meelna colaad ahaataahi waa suurtageli weyd waa soo aragnay. haddii dhibka Soomaaliya ka jiraay oo Kenya khusaynayo oo Ethiopia uu khusaynayo oo Djibouti uu khusaynayo oo ciddii kale ku sii degan uu khusaynayo waxa kaliya ee nagu habboon waxay tahay in aan ka wada shaqeyno dhammaanteen inaan dhib la'aan aan ahaano. rijinkeenu rijin nabadeed inuu noqdo sida aan rijimada kale ee qaaradda Afrika ku yaallo aan ula tartanno xagga dhaqaalaha, xagga cilmiga, xagga aqoonta. marka fursadaha gobolkan uu haystahay waa badan yihiin. waxaan leeyahay mar kale sida aan dadka Soomaaliyeed taladeena aan ku meel marna aan u lahay gobolkan taladiisa ku meel maraan leenahay. gobolka geeska Afrika waxaan leenahay taladiisa ku meel maro, taladiisa ku filan, dadkiisa ku filan, hoggaankiisa mas'uuliyadda leh ayaa ku filan. taladeena way nagu filantaa waana barwaaqaysaa gobolka intaasaan ugu baaqayaa. caalamka guud ahaan waxaan leeyahay Soomaaliya waxay u baahan tahay taxadar gooni ah, naxariis gooni ah, daraawshiyaro gooni ah. Soomaaliya ma saacidayo ajandaha caalamiga ah ee adduunyadu ay ku mashquulsan tahay. Soomaaliya waxaa saacidayo ajandayaal ayadu ay la timaado. ajandayaashaas ayada ay la timaadaan u baahannahay in lagu saacido. Soomaaliya maanta muhiimadaheeda ka mid ma aha waxyaabo badan oo adduunyada maanta ay muhiimada u ah oo ay u hormarto. waxyaabo badan oo hay'adaha caalamka ee adduunyada kaalmada bixiya ay kaalmadooda ku bixiyaan. Soomaaliya maanta wixii ay u baahneed ama yani hortabinta u lahay ma aha. caalamku waxaan leeyahay Soomaaliya dib ha u eego, baahideeda gaarka ha eego, duruufaheeda gaarka ha eego, baahida ayadu ay qabtay ayadu ay cayimata ha lagu garab siiyo.